Sheekada Aisha iyo kalluunka sixirka leh. Waxaa la sheegay in nin kalluumaysato ah uu lahaa gabar aad u qurux badan oo la odhan jiray Aisha. Hooyadeed way geeriyootay, markaas ayuu aabbaheed guursaday haweenay kale oo aad u xun oo neceb Aisha. Haweenaydaas waxay lahayd gabar fool xun oo caqli yari ah. Maalin maalmaha ka mid ah, aabbuhu wuxuu keenay kalluun badan. Hooyada labaad waxay ku amartay Aisha inay nadiifiso oo kariso. Intii ay shaqaynaysay oo heesaysay waxay maqashay cod yaab leh. Markii ay fiirisay waxay aragtay kalluun hadlaya. Kalluunku wuxuu yidhi, waxaad tahay gabar wanaagsan. Waxaan ahay gabadhii boqorka kalluunka. Fadlan isii daa, aabbahay wuu iga murugaysan yahay. Wuxuu siiyey qolof yar oo yidhi, haddii aad i baahato dabaysha u jeedi, waan kuu iman doonaa. Aisha way sii daysay kalluunkii. Dulmiga hooyada labaad. Markii ay guriga ku noqotay, hooyada labaad ayaa khiyaano samaysay. Cusbo badan ayay cuntada ku dartay. Aabbaha ayay ka xanaajisay. Aabbuhu wuxuu ciqaabay Aisha wuxuuna ku xiray qol mugdi ah. Abaalmarinta samafalka. Markii ay ceelka tagtay, 2 nin ayay biyo siisay. Geed ayay waraabisay. Bisad ayay caawisay. Dhammaantood waxay siiyeen ducooyin. Marka ay qosolto, dahab ayaa ka soo daadanaya. Marka ay ooydo, roob ayaa daaya. Meel kasta oo ay socoto, xariir ayaa daba socda. Sirta qolka mugdiga. Markii lagu xiray qolka, bisadii ayaa u timid. Indhaheedu waxay noqdeen iftiin. Waxay u kaxaysay meel qarsoon. Aisha waxay aragtay dharka xariirta, dahab iyo qurxin. Boqortooyo jinniyo hore ah. Waxay noqotay mid qurux iyo sharaf leh. Xaasidnimada hooyada labaad. Hooyada labaad waxay ogaatay sirta. Waxay dirtay gabadheeda si ay u hesho nasiib la mid ah. Laakiin gabadhu way diiday inay dadka caawiso. Way cayday geedka iyo bisada. Waxaa lagu habaaray. Jiir ayaa cunay dhegaheeda. Waxay noqotay mid ka sii fool xun. Qorshaha dilka. Hooyada labaad waxay Aisha u kaxaysay buur si ay uga takhalusto. Laakiin shimbiro ayaa caawiyey. Waxay helaysaa dariiqii guriga. Aisha way badbaaday. Gunaanad qaybta hal. Aisha waxay noqotay gabar xoog leh. Nasiib badan. La jecel yahay. Laakiin hooyada labaad weli ma quusan. Qorshe kale ayay diyaarinaysaa. Qof kasta oo wanaag beera, wanaag ayuu goostaa. Laakiin sheekadu weli ma dhammaan. Qaybta 2 ma rabtaa. Sheekada Aisha iyo kalluunka sixirka leh. Waxaa la sheegay in nin kalluumaysato ah uu lahaa gabar aad u qurux badan oo la odhan jiray Aisha. Hooyadeed way geeriyootay, markaas ayuu aabbaheed guursaday haweenay kale oo aad u xun oo neceb Aisha. Haweenaydaas waxay lahayd gabar fool xun oo caqli yari ah. Maalin maalmaha ka mid ah, aabbuhu wuxuu keenay kalluun badan. Hooyada